بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo xaaladda guud ee dalka amniga doorashooyinka guud ahaan dalka ka socda taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah guddiga amniga doorashooyinka oo ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dalka ayaa si dhow ula socda xaaladda doorashooyinka guud ahaan geyiga Soomaaliyeed shalay oo ay taariikhda ahayd 13 bisha 2022 waxaa garoonka aadan cadde international airport ka dhacday yar oo quseysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan muudey oo rabay inuu aado deegaanka Baraawe oo ay ka socoto wajiga labaad ee doorashada maamulka koonfur galbeed oo si nabad ah ku socota si dardar leh ku socota ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo siinaya muhiimad deegaanka qadiimiga ee Baraawe waxa la geeyay ciidankii ugu tayada badnaa saraakiishii ugu aqoonta badneed ee sugaysay amniga deegaanka Baraawe ma jirto sabab qof shakhsi ah muwaadin Soomaaliyeed ha ahaado mid wax dooranaya mise mid la dooranayo intaba ay ugu cabsadaan deegaanka Baraawe ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta badan ee dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo dawladda federaalka eelboorka aadan cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidankiina la hakiyay markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muudey laguna wargeliyay in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5 ilaa 4 sababtoo ah Baraawe waa deegaan xasiloon waa deegaan ammaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo uu horeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka haddaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya qof kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay mas'uul ka yihiin ammaankiisa sugidda amniga sugidda doorashooyinka waxaana har iyo habeen u teedsan ciidan booliis Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidida u taagan in ummadda Soomaaliyeed ay si xur xalaal isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqeystaan mana jirto sabab qof wax dooranaya qof la dooranayo oo uga baqi karo deegaanka Baraawe oo ammaankiisa uu sugayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida muwaadiniinta xildhibaanada iyo cid walba oo musharax ahna waan ku wargelinaynaa in deegaanka Baraawe ammaankiisa sugan yahay ayna joogaan ciidanka dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo sugaya ammaanka doorashooyinka annaga haddaan nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa naga quseeya in doorashadaas ammaankeeda la sugo oo shakhsi la dooranaya iyo mid wax dooranayaba aysan wax dhiba arag taasna waa u taagan yihiin waa kuwa har iyo habeen hoodka ugu jira in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si caadi ah isku doortaan oo aysan wax qalqal amni daraa qabin muwaadin kasta oo damac ka leh inuu aado doorashooyinkaasna waxaan ku wargelinaynaa ilaaladaada gaarka ah oo shakhsiyan waa lagu ogol yahay laakiin saanad boqolaal ciidan oo hub culus oo artillery iyo nooc walba leh wata inaan laga ogolaan doonin in deegaan xasiloon la geeyo wax walbana ay dhici karaan waxaan ku wargelinaynaa muwaadiniinta aadaysa doorashada in ilaaladooda gaarka ah 3-4 ugu badnaan mas'uuliyiinta sare ilaa 5 qof ay wataan marka laga reebo mas'uuliyiinta sare ee dalka waxaan u ogolnahay xildhibaan kasta oo aaday deegaan doorashadiisa inuu ka haysan karo 5 askari sida ammaanka ba uu yahay Baraawana ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin sare horena uu u booqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee guddiga amniga doorashooyinka taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu balan qaadayaa in goob kasta ay doorasho ka dhacayso oo dalka ka mid ah ciidan booliis jooga loo tababaray sugidda amniga doorashooyinka kaliya qaas u ah marka muwaadiniinta Soomaaliyeed nooc walba yihiin waxaan ku wargelinaynaa in qofka ilaaladiisa gaarka ah 2 3 4 ilaa 5
uu wadan karo laakiin saanad military oo culus intaas la eg la aadi karin gobolada dalka diyaaradaha naftirkooda ay qalqal galaan oo dhahaan ma qaadi karno marka annaguna waxaan mas'uul ka nahay amniga diyaaradda amniga mas'uulka iyo amniga ciidanka baxaya naftirkoodii xafidaaday u baahan yihiin intay hawada ku jiraan marka taa annagoo ka duulayna waxaan uga digaynaa in mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid walba oo damac leh doorasho u socota inay u diyaar garowdo in ilaaladeeda gaarka ay qaadato waana mahadsantiin